Okay. Asalaamu calaykum daawadayaasheeda qaaliga ama aad jeclaatid ama aanad jeclaan video gameska maad garanaysaa ninka barta ku sawiran kolley ma garanaysid haddii aad garan weyday waxaa qasab ah ama u badan tahay haddii aad jeceshahay video gameska ama aanad jeclayn labadaba inaad maqashay PUBG daba ninkii sameeyey waa ninkan weeyaan magaciisa waxaa loo yaqaan Brendan Green baa loo yaqaan magaciisa haddaba ninkan wuxuu ka tegey 2013 isagoo $0 haysta 2017 wuxuu haystaa akoonkiisa 200 milyan wax ka badan kadib markuu geemkan sameeyey waa maxay sheekadiisu siduu lacagtaa ku sameeyey inoo bilo fideogana Brendan Green Mr. Green wuxuu ahaa nin u dhashay dalka Ireland wuxuu ku soo karay camp askar ah oo Cork la yiraahdo oo military ahaa wuxuu waxaa ka soo bartay waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe wuxuu ka baxay jaamacad wuxuu waxaa ka soo baxay arts ku soo baxay jaamacadda arts ku soo baxay ka hor intaanu ninkani ka soo qaadan aanu soo gelin xagga game developmentka iyo waxaasoo dhan ninkan Mr. Green waxaa marka hore ahaa in ka hor inta shaqadiisan kale DJ marna wuxuu ahaa photographer waxyaabahaasuu ahaan jiray kadib 2013 markii la mariyey waxa uu guuray dalka Brazil halkaas oo uu kadib ku soo bartay gabadh Braziliyada uuna isku guursadeen xaggaas xiriirkooda ku dhammaaday guur si fiican bay wada joogeen kadibna aduu ugu dambeyntii way kala tegeen gabadh ilmo yarna oo enana ay isku dhaleen maalintii ay gabadha ka tagtay ninkaas wuxuu haystay $0 waxba mu haysan shilina xitaa mu haysan ticket uu kaga yimaado Brazil oo ku soo noqdo dalkiisii hooyo markii dambe markii uu lacag wax iska urursaday uu dalkiisii yimaaday wuxuu bilaabay inuu dhigto game developmentka iyo programmingka ninkii siduu soo baranayay waxa uu bilaabay in uu gamekii sameeyo kadib gamekiisuu sameynayay waxa uu kadibna u guuray South Korea ayuu tegey markii uu tegey wuxuu la kulmay Shang Han Kim ayuu u tegey ninkaas suguna ahaa xagga gameka dhisa teamna lahaa teamkii iyo sharkii markii uu tusay fikradihiisii gamekan PUBG way ka heleen xagaasay kadibna ay ka sii wadeen samayntii gamekan dadka badankoodu waxay moodaan in nin gamekani ahaa gamekii ugu horreeyu sameeyey laakiin ma aha waxaa ka horreeyey gamam kale sida Arma iyo Delta Force labadaa game way ka horreeyeen haddaba 2016 ayaa ahayd markii ugu horreysay ee loo soo saaray caalamka gamekan ee lasoo saaray xagaas oo gameka PUBG magaciisa laga keenay xuruuf la soo geeyay oo ahayd Players Unknown Battleground PUBG haddaanu gamekan ka yar sheekeyno siduu u shaqeeyo waa rag game aad raacisid diyaaradba fulaysaa jasiiradda ku degaysaa jasiiradda intayna ku degin midna hub ma haysto dadka qaarna dhar ma haystaan markii aad 100 qof ay soo degaan jasiiradda mid walba hub urursanayaan ka kala dilaya waxaa kaloo urursanayaan dharnay urursanayaan kadibna markay soo socoto zoom baa jira wax la yiraahdo oo soo ururnaya aduu gameku waa game saasa kadib hal qof baa soo haray waa isdilay hal qof baa soo harayana haddana waxaan kaga kaalnay gameku soo shaqeynayana markii la mariyay 2017 bishii September waxa uu jibiyay gameku record cusub oo ah 1,240,587 qof oo hal mar online wuxuba ah recordkaas ayuu jibiyay oo noqday gameka ugu fara badan ee dad intaa leegay hal mar wada isticmaalayaan gamekan waxa uu imika haystaa in ka badan bilyan oo dollars gamekan waxa uu imika ninkii markii bisha 17 kii markii la mariyay muddo yar markii uu sameeyay kadib lacag waxa soo gashay isla markiiba 200 milyan oo dollar gamekan dadkii suu adduunka ugu faafay dalka horta ugu fara badan ee lagu isticmaalo waxa China oo 63% ka isticmaalayeen dadka dadweynaha isticmaala caalamka 12% ahaad suu dalka Mareykanka 8% iyaguna noqday dalka India gamekan haddaba haddii waxaa kaga kaalno gamekan iyo sheekadiisii suu samaysmay interview laga qaaday ninkan ayaa aniga aad iyo aad soo jiitay wuxuu yidhi waxa gamekan anigu hadalkiisa anuu ma jeclayn inaan ciyaaro yidhi mana ciyaaro maba ciyaarin buu gamekan wuu sameeyo kaliya waa ninkii sameeyey mana ciyaaro yidhi marka la tijaabinayay gamekana rag ciyaara ayaa loo yeerin jiray iyagu maba ciyaarayaan iyagu way sameynayaan marka waa ninkii sameeyey baa saa hadlaya waxaa jira gamekan imika adduunkiisa ugu faafay aad iyo aad ayaa uu ugu faafay gaar ahaan mulina carruurtii iyo dadkii yaryara dalal badan baa jira oo laga mamnuucay sida sanadkii 2019 sida dalka xagga carabta Urdun Ciraaq baa laga mamnuucay waxaa kaloo laga mamnuucay dalka India 2019 bishii saddexaad inkastoo markii dambe qaar dib loo sii daayay laakiin adoo horta mar walba mamnuucay markii la arkay saameynta fara badan uu ku leeyahay bulshadii iyo carruurtii iyo dadkiiba marka ninkan isaga qof ahaantiisa gameku aad wax ugu taray lacag buu ka sameeyey wuuna uu ku taajiray magac buu ku yeeshay laakiin isagu intaa waxaasan uusan mana ciyaaray isagii waa ninkii sameeya soo hadlaya halkii jiraan dad 24 saacadood baa ciyaaraya habeenkii ku saameelaya waxaan ku leeyahay walaalkayow ma iska caadi ma marnaad waqti yaraad iska
aad ku bixisid laakiin inaad addiction ka dhigatid ama aad waqtigaaga ku bixisid waa laga fiican yahay raggii sameeyey ayaa saa u hadlaya waa sax haddaba sheekadana iga qoslaysa waxa weeyaan gabadhii ninkaa kaga tagtay lacag yaraanta ee ka tagtay isagoon shilin haysan bal ka waran maalintii loo sheegay lacagtaa uu sameeyey inuu milyaneer noqdo ninkii reactionkeedii bal muxuu noqon doonaa bal muxuu noqday commentiga inoogu soo qor wabilaahi towfiiq waa inooy muuqaalka muuqaal ku xiga waxaan leeyahay aad baan idin jeclahay